Warar kala duwan ayaa ka soo baxayo khasaaraha ka dhashay qarax xooggan oo goordhow ka dhacay gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka. Waxaana kadib la maqlay rasaas isxigtay. Qaraxa oo ismiidaamin ahaa loona adeegsaday baabuur ayaa la soo warinayaa in lagu weeraray hotel ku yaala galbeedka magaalada oo lagu magacaabo Qaahira. Dhismaha la weeraray ayaa la sheegay inuu ka socday abaabul xoog leh oo ku aadan dardargelinta howlgalka ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Wararka ayaa intaasi ku sii daraya in hotelka la beegsaday ay ku sugnaayeen odayaal dhaqameed iyo saraakiil la sheegay inay abaabulayeen howlgal ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Sidoo kale waxaa qaraxyada xigay weerar toos ah oo xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku galeen hotelka ayagoo wili ka dhex dagaalamaya goobta sida ay noo sheegeen ilwareedyo xilkas ah. Khasaare kala duwan ayaa jiro balse ma cadda inuu gaarsiisan yahay maadaama wili howlgalka uu socdo, rasaasna laga maqlayo aagga ay wax ka dhaceen. Xaaladda goobta ayaa wili cakiran waxaana gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo howlgal culus ka wada dhismaha hotelka oo ku yaala aagga xaafadda Howlwadaag. Ma jiro weli war rasmi ah oo ka soo baxay maamulka gobolka iyo kan degmada saraakiisha laamaha amniga ee ku aadan qaraxyada iyo weerarka xigay ee Beledweyne. Wararkan ayaa soo aadayo xilli Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ay haatan ay ka socdaan howlgal culus oo ka dhan ah maleeshiyaadka Al-Shabaab oo mar kale dib ugu soo laabtay deegaanadii laga xoreeyay ee goboladaasi oo hoostaga maamulka gobolka Hirshabeelle. Beledweyne oo xudun u ah kacdoonka shacabka ee ka dhan ah ururka Al-Shabaab ayaa waxaa marar badan ka dhacay qaraxyo ay soo maleegeen Al-Shabaab oo geystay khasaarooyinka iskugu jiro dhimasho iyo dhaawac. Waxa uuna qaraxan la mid noqonayaa kuwii hore. Zamzam Maxamuud, Home Public Media, magaalada Nairobi.